haatana dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qaybtii koowaad sheekadii Waasuge iyo Warsame qalinkii Allah u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare. Waasuge Waranside waa nin caan ah kuna nool degmada Jowhar. waa 60 jir itaal u dhashay. waxaa itaalka u dheer waa dadka ayan da'du ka muuqan. waa culimo la jir aftahana wuxuuna ku soo barbaaray lo iyo beer kuwaasoo ay nolosha qoyskiisuba ku tiirsan tahay. wuxuu degan yahay meel gelin socod u jirta magaalada Jowhar. gobolka Shabeellaha Dhexe ee uu ku nool yahayna aad ayaa looga yaqaan loogana tixgeliyaa. Waasuge wuxuu goostay inuu sadcaal gaaban xamar ku gaaro si uu u soo fushado umuuro yaryar oo la xiriira baahida qoyskiisa. waa barqal la kala agaasimay ilmihii iyo xoolihii. waayeelka reeruhu wuxuu isu diyaarinayaa hawl maalmeedkii beeraha. Waasuge maanta ayuu baxayaa. wuxuu la dardaarmayaa oo uridka la taagan yahay afadiisii Muslimo. halka uu hooskiisa subax ku dhammaado waxaa ku cayaaraya da'goyskii Muslimo oo 5 jir ah. wiilka dhinaciisa bidixeed waxaa ku xiran weylo ay lo'i ka sooftay. geertooda isdaba joogga ahna ay iska maqli la'yihiin Waasuge iyo afadiisu. Muslimo waxay taagan tahay qaarka gudihiisa iyadoo cuskan yaambo ay beerta u soo qaadatay. waxay si xiisale u dhagaysanaysaa Waasuge oo kala ballamaya reerka. iyaduna waxay markeeda duqa ku adkaynaysaa fariimo u gaara baahideeda mar hadduu magaalo tegayo. duqii iyo afadiisii oo weli dardaarmaya ayaa waxaa u yimid rag Jowhar ku socda oo ay Waasuge ku ballansanaayeen inay isla jilmaraan. halkaas ayayna iska raaceen. waxay socdaan kush taraaran keliyana ka tallaabaanba goor duhur dabayaaqadiisa ayay tageen magaalada Jowhar. kadib markuu odayaashii la shaacabay Waasuge wuxuu si toosa u aaday suuqa baabuurta. wuxuuse ku beegmay baabuurtii xamar oo goor hore baxday. nasiib wanaag intoora markuu taagnaa waxaa gaalkacyo ka yimid baabuur xamar u socda. dhowr qof ayaa halkaa uga degay. si sahlan ayuuna Waasuge kursi uga helay. isla baabuurkaas uu Waasuge soo raacay waxaa la socday nin isna caana oo la yidhaahdo Warsame Hawl kana mid ah xoolo dhaqatada gobolka Mudug. Warsame wuxuu asaguna u soo danaystay isla magaalada xamar. Waasuge iyo Warsame maqaadiir eebbe ayaa ku kulmisay baabuur gudihii. waa 2 oday oo kala daran xagga aqoonta dhaqanka dadkooda iyo waayo aragnimada kale intaba. wuxuu mid waliba rumaysan yahay inuusan koonkaba ku noolayn ruux uga aqoon badan suugaanta Soomaalida wax kalaba yeelkoodi. dadka kale oo baabuurka saaran waxay u badan yihiin rag dhexdhexaad ah. guud ahaan waxay isugu dhafan yihiin rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel. dhowr kursi ayaa ka bannaan baabuurka. waxaase la malaynayaa in jidka dad laga sii helayo. reer magaalka baabuurka la socda waxaa ka mid ah wiil 20 jir ah. muuqaalkiisuna ka duwan yahay inta kale. wuxuu labisan yahay surwaal iyo shaar turmadooda looga dayday habka cusub ee dhalinyarada reer galbeedka. waxaana ku yaal timo aan weli maqaska la barin. waxaa magaciisa la yidhaahdaa dhaanraac. waana inan meel sare ka gaadhay ku dayashada xaragada reer galbeedka. waqtigu waa isgurayaa. goor casar shooda lala galay ayuu baabuurku ka soo dhaqaaqay magaalada Jowhar. waa maalin ay hawadu aad u wanaagsan tahay. shufeerka baabuurka wadaahu waa nin waayeel ah. waxaa caado u ah in mar kasta oo baabuurku dhaqaaqayo uu dadka saaran ku yidhaahdo faatixada akhriya. dadka oo odayaal u badnaa daraaddeed maalintaas waxaa faatixada la akhristay intuusan shufeerku hadlin.
faatixadaas wadajirka loo akhristay dhaarraac kama uusan qayb gelin wuxuu ku howlanaa oo ku shallaysanayay muraayadda baabuurka in yar kadib markii samada jawhar laga baxay ayaa la galay beero aad u baxaad wanaagsan oo jidka labada dhinac kala xidhiidha waxaa lagu jiraa sanad barwaaqo ah oo bar iyo beerba ay mahadiyeen galley sisin iyo khayraad kale ayaa beeraha ka dhisaaran dadkii baabuurka saaraa badiidood dariishadaha ayay madaxa ka wada riteen ayagoo il iyo laab kulansan beeraha ku daawanaya waa suge oo fasalkaas beertiisu xumayd ayaa kuwaan aad ugu dhaygagay wuxuuna intuu isaga raacayay gallayda iyo masagada qalbiga uga heesayay beer nimaan falin bawd u dhigin weyn bahal celin kara biyo ugu di'in dow barwaaqa ah badar uga bixin bakaar lagu shubo baahi weligii waa u bilan yahay markii beerihii laga baxay oo cabbaar la socday ayuu shufeerkii qaboojiyey socodkii baabuurka si isdaba joog ahna hoonka u yeeshay taasina dadkii oo dhan ayay dhiilo ku abuurtay qof waliba wuxuu is yidhi bal hubso waxa baabuurka hakiyey waxay arkeen jidkii oolo iyo geel fara badan oo ku gudban yihiin waxaa la soo galay meel bulsho xoola dhaqato ahi naq ka degtay dhulku waa doog iyo biyo dhex yaal midabada indhuhu jecel yihiin oo dhan waxay ku kulansan yihiin dhirta kala jaadka ah oo ilaahay dalsankaa ku beeray laama cargeeyey oo caleemu ku gaafan tahay ubaxna guudka ku sita ayuu geed waliba la tiicaya ragga iyo dumarka xoolaha la jooga oo caafimaad iyo farxad buuxda ka muuqdaan waxay isku maaweedanayaan lagdan iyo cayaaro hidde qaarkoodna meelo kala fog ayay koox koox ugu sheekaysanayaan warsamo ayaa markuu arkay geelii oo isugu jira irmaan iyo horweyn aaran iyo galoof iscelin waayey markaasuu ku dhuftay kuna luuqeeyey heestii geela ay ahayd geel nimaan dhaqan goodir xalay dhalay gaawuhu u culan gaarka kala gelin naase godol qaba gaagaxna u helin gurdankood maqal gadoon kala dhihin gaatan ula socon geed qabow tegin waa gob yaa yidhi markuu warsame heestii dhammeeyey ayaa dadkii baabuurka saaraa badidood ka codsadeen inuu ugu soo celiyo warsamo way la xumaatay inuu isla heestii ku soo celiyo mar labaad maxaa yeelay waa nin korka ka haya suugaan fara badan isla markiiba wuxuu dadkii u dooray baydad ka mid ah gabaygii cumar isteeliye ee ahaa meeshii awow iyo awow xaawo iyo aadan arligeenna xoolahani way ku isiraayeene adduunsa lama sinna ee geel horaa laysu aaminaye waa waxay abaartu u dhaqdeen odayadeeniiye haddii oofaweynow ratiga ayra lagu qooqsho amin khayrka galabtii hadduu aaran soo diriyo usha koliya 2 jeer haddaad yaro ogeysiiso umalkii uu qabay doob hadduu awda kaga siiyo indhalaliska miciluu sidii aar u rabinayo kolna waxaan adduunkala lahayn aabi socodkaas si weyn ayuu dadkii gabaygaas ugu riyaaqay qaarkoodna waxayba wadajir ugu luuqeeyeen beydka ugu dambeeya ee ah kolna waxaan adduunkala lahayn aabi socodkaas dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo socda iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii waa suge iyo warsame sodcaalkii 30 maalmood